dadkana waxa u horeeya inuu barayna ha noqdo allah subxaanahu watacaala inaynu dadka ilaahay barno ilaahayna waxaynu ku baraynaa aayaadkiisa qur-aanka ee ilaahay noo sifaynaya ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa dalkeenna inuu noo barakeeyo barakooyinka samadee dhulkaba inuu noo furo ilaahay madaxdeenna ha inoo wanaajiyo ha waafajiyo waxa diinteenna iyo adduunyadeennuba ay ku hagaagaysa ee danteenna ay ku jirto taliyayaal fiican ilaahay ha u yeelo xaflad kasta waxaad arkaysaa madaxda kala duwan oo fadhiya ayaad arkaysaa waxaana taasi calaamad ay u tahay inay yihiin dad markaa diinta jecel isla markaana garab taagan culimadooda iyo ducaadda iyo macallimiinta dadka diinta barayana dhiiri gelinaya horeyn ammaan iyo mahadba ilaahay baa leh subxaana watacaala mahadnaqa ilaahay kadib waxaan u ducaynayaa hambalyeynayaa ardayda habliyeynnamaba leh ee maanta xafladooda aynu joogno ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryayaa cilmiga intaa ay barteen inuu ku anfaco kuwa dadkooda ku anfacana ilaahay inuu ka yeelo inta u dhimanna ilaahay inuu waafajiyo una fududeeyo barashadiisa ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryayaa cilmigooda inuu ka yeelo cilmi barakaysan oo naftooda iyo dadkooda iyo dalkooda intaba wanaag ay ugu kordhiya waxaan u mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta dadaalka geliya ardayda maanta xafladooda aynu joogno iyo kuwa kale ee macaahidu salaaxuddiin dhigta intaba ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo miisaanka xasanaadkana ha u saaro waan salaamayaa marti sharafka wasiirada madaxda kale culimada iyo madax dhaqameedka iyo waalidiinta intaba waxaanan leeyahay sharaf bay idiin tahay xafladahan oo kale inaad ka soo qayb gashaan aada iyo aad baan anigu ugu faraxsanahay mar kastoo xafladaha noocan oo kale aan imaadaan ugu farxay waxyaabaha aan ugu farxeen ilaahayna aada uga mahadnaqo waxaa ka mid a waxay calaamadii astaan u yihiin dalkeenna diintu sida ay ku tahay inaynu nahay dad dowlad iyo dadweyne da-yar iyo waayeelba isu kaashada kor u qaadista ilaahay subxaana watacaala diintiisa xaflad kasta waxaad arkaysaa madaxda kala duwan oo fadhiya ayaad arkaysaa waxaana taasi calaamad ay u tahay inay yihiin dad markaa diinta jecel isla markaana garab taagan culimadooda iyo ducaadda iyo macallimiinta dadka diinta barayana dhiiri gelinaya ilaahay subxaana watacaala wanaaggaasi haynoo siyaadiyo oo haynoo kordhiyo ardayda waxaan leeyahay cilmigu wuu bilaabmaa ma dhammaado nebi maxamed buu ilaahay ku uhi waqul rabbi sidni cilma ilaahay waxaad weydiisataa inuu cilmi kuu kordhiyo qof kastoo aqoon lana mid ka aqoon badan baa jira ilaa cilmiga ilaahay looga hadhayo ilahay wuxu uhi wa fawqa kulli dii cilmin caliim mid kastoo cilmi leh mid ka cilmi badan oo cilmiga kaga sarreeya ayaa jira imaamkii cilmi yaqaanka ahaa xadiis yaqaanka ahaa ee cabdillaahi ibnu mubaarak la odhan jiray baa lagu yidhi ilaa goormaad cilmiga baranaysa markaasaa wuxuu ihi ila almamaat lacalla alkalima alatii biha najaati lam asmac biha ilaa aan ka dhimanayo cilmiga waan baranaya waxaa dhici karta kelmaddii aan ku badbaadi lahaa ee janno aan ku geli lahaa naarna aan kaga badbaadi lahaa weli inaanan maqal markaa cilmiga barashadiisa sii wada hadday tahay cilmigan jaamacaadka iyo akademiga lagu tilmaamo iyo culuumta masaajidada iyo xalaqaadka lagu barto oo ta-aadka u qiimaha badan hadday tahay xagga qoynta qalbiga iyo siyaadinta iimaanka iyo itqaaninta iyo ka gungaadhka barashada cilmiga iyo toosnaanta qofku uu noqdo qof ilaahay diintiisa ku toosan talada labadan idin siinaya waxay tahay qofku marka uu cilmi barto xil iyo mas-uuliyad dheeraada buu qaaday cilmigu adigu xujo kuu noqonaya ama xuju kuu noqonayaa marba ku camalfalkiisa sidaad ka yeesho ayaanay ku xidhantay cilmiga barakadiisuna waa labas ay culimadu sheegeen inaad naftaada ku hagaajiso qalbigaaga laga bilaabo
carabkaaga iyo xubnahaaga ilaahay subxaana wa tacaala aad ku caabudad ugu hoggaansanto wixii lagu diiday inuu kaa celiyo iyo dadka kale cilmiga inaad ku anfacdo baahi badan oo aqooneedna waa jirtaa waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid a dhalinyarta aqoonta diineed baratay heer aqoontoodu ay tahayba inay u haystaan inta ay yaqaaniin dadku inay wada yaqaaniin oo kuwo ka haqabla inay yihiin laakiin xaqiiqadu sidaa ma aha dad fara badan oo magaalooyinka jooga kuwa tuulooyinka jooga kuwa miyiga hadalkoodaba daa aasaasiyaadka diinta islaamka ee qofna inuu jaahil ka noqdo aan la ogolayn ayay dad fara badani jaahiliin ka yihiin hal qof haddaad wax bari karto laba ka badan tiradaad gaadhi karto cilmiga sekadiisa iska bixi waajibkii xilka kaa saaranna iska gud dadkana waxa u horeeya aynu barayna ha noqdo allah subxaana wa tacaala inaynu dadka ilaahay barno ilaahayna waxaynu ku baraynaa aayaadkiisa qur-aanka ee ilaahay noo sifaynaya ee rabbi subxaana wa tacaala inoo tilmaamaya ilaahayna baraya waxaa kaleynu ku baraynaa makhluuqaadka waaweyn ilaahay kelinimadiisa jiritaankiisa kelinimadiisa iyo awooddiisa tusinaya qofku hadduu ilaahay si fiican u barto qalbigiisu ilaahay uu ku xidhmaa qof ilaahay tala saaranayo ku kalsoon buu noqdaa sidaasoo kale qalbigiisa ayaa xasila warwarka iyo walbahaarka ayaa arrintaasi dawaay uga noqotay guud ahaan dadkeenna waxaan ku dhiirigelinayaa gaar ahaan waalidiintu ubadkoodu inay diinta bartaan aad bay u jeceliin oo inta maanta qur-aanka xifdinaysa iyo inta macaahidda wax ka baranaysa waalid baa ka dambeeya oo soo tabantaabiya oo meelaha keena laakiin waalidka laftooduna ha ogaadaan diinta barashadeedu inay waajib iyagana ay ku tahay nebigu wuxuu yihi talabu lcilmi fariidatu calaa kulli muslim cilmiga barashadiisu waa faral saaran qof kastoo muslim faral qof walba goonidiisa looga rabo ama faral ummadda in ku filan inay barato la rabo faralka barashada cilmiga ee faralkee qof walba saaran waxaa u horeysa qofku inuu barto usuuluddiin arkaanta islaamka macnaheeda dhabtaa uu barto laa ilaaha illaa maxamedun rasuulullah macnaheedu waa maxay iyo ku dhawaaqisteedaba saasoo kale inuu barto salaada iyo waxay u baahan tahay tahaaradii ayaa ka horeysa kadibna axkaamtii salaada soomka iyo qofkii xoolale sekada iyo qofkii awoodo xajka inuu tago in axkaamtii xajka la barto iyo arkaanuliimaan oo ilaahay in la rumeeyo ilaahay sidaa loo rumaynayo qof waliba inuu bartaa waajib bay ku tahay in la rumeeyo malaa'igta in la bartaa waajib bay tahay malaa'igtu waa maxay waa inaad isweydiiso oo inta iimaankaasi u baahan yahay aad ka barato kutubta ilaahay soo dejiyey rususha rasuul waa maxay dadka kale muxuu kaga duwan yahay maxay nagala gudboon sidaasoo kale qadarka iyo rumayntiisu aqoonta ay u baahan tahay iyadana qofku waa inuu yeesho alimaanu bilyowmi alaakhir oo qofku markuu nafbaxa ka bilaabanta ilaa janniyo naar laga gaadho qof waliba waa inuu barto carruurteenna waa inaynu barno inuu ku ababino waalidkuna waa inuu barto qof walibana waa inuu barto waa cilmiga laa yasacu axadan jahlu qofna inuu jaahil ka ahaado aan la ogolayn hadda waktigan aynu ku jirriyo dalkeenna marka la eegana oo aqoontii ay meel walba taalana qofka loogu cudur daari maayo inuu jaahil ka ahaado isaga ayaa ka gaabiyey barashadii ilaahina subxana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu khayr oo dhan ina waafajiyo cilmiga barashadiisana ina jeclaysiiyo inaguna caawiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa dalkeenna inuu noo barakeeyo barakooyinka samadee dhulkaba inuu noo furo ilaahay madaxdeenna ha inoo wanaajiyo ha waafajiyo waxa diinteenna iyo adduunyadeennuba ay ku hagaagaysa ee danteenna ay ku jirto taliyayaal fiican ilaahay ha u yeelo oo wanaagga fara xumaantana ka reeba wanaaggana ugu kaalmeeya oo ku caawiya ilaahay shar iyo fitno oo dhanna ha inaga badbaadiyo dadkeenna iyo dalkeennaba ha ka fogeeyo ilaahay noo dambi dhaafo innaga iyo waalidiinteen waad mahadsantihiin jazaakum allahu khayran sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin
وأنا هذه هاي كلمة قيمة بدل إلى سبحانه وتعالى أن وافعه شيخنا الله سبحانه وتعالى ميزان حسنات وقدره waxaan u yeeri doonaa afar arday oo ka mid ah ardayda si markaasi sheekhu u guddoonsiiyo aan soo dhaweeyo fadlan cabdiraxmaan cilmi sidoo kale hoodo xasan